taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Sarreeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani oo warbaahinta qaranka kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dagaalo saaka ka dhacay bariga iyo galbeedka magaalada Laascanood iyo waliba deegaanka Dhabarsaar ee gobolka Sool. taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegay in dagaaladaasi ay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guulo waaweyn ka soo hooyeen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waxa geedeen mudaba bishii koowaad ee sanadka laga bilaabo ilaa hadda in qalalaasa iyo dagaalo badan ay ka socdeen Laascanood. taasoo qaswadayaal iyo niman argagixisay ay hawsha ka wadeen iyo dad kale oo shicib ah oo si xun wax loogu sheegay dagaalkaas ilaa bishii January ilaa mission May uu socday maanta dagaalaha ka socda magaalada Laascanood iyo tuulada Dhabansaar tuulada Dhabansaari 25 kiiloomitir bay galbeedka ka xigtaa laamiga cadcadeeye ciidanka halkaas soo galay oo sodomeeye technical watay Dhabansaar wuxuu doonayay wadada inuu qabsado taakuleentana aw ciidanka ka jaro ciidanka qaranku ku xisaabtamay arrinta guluf buu kala hortagay saaka 6 subaxnimo ayaa halka la isku helay meel 6 kiiloomitir Dhabansaar u jirta la isku helay waa la jabiyay magaaladiina gacanta waxa ku haya ciidanka iyagina waxa u yaaceen ilaa tuulada la yiraahdo Balahara ayaa madaxoogii gaaray gurmado dambe oo dalbadeena wali ma soo gaarin halkaas la kala joogaa waxay ka bilaabeen markay dagaal ka ogaadeen bariga iyo galbeedka Laascanood dagaalo culus bay ka bilaabeen waana lagu jabiyay labadaba bariga iyo galbeedka qaybtiisa hore qaybaha dambana waan ogaan doonaa laakiin saaka maanta waxa dhacay saddex dhowrka dagaal galbeedka Laascanood bariga Laascanood iyo Dhabansaar intaaba ciidanka qaranku guul buu ka soo hooyay asaaro u dhacaya dhimasho way dhacaysaa daawacno u dhacaya laakiin yaa guusha helay baa taala guul baa intaba laga gaaray waxaana uga jeedaan sidii carqaladeyn ay carqaladeyn sidii tukumay oo bay sii sheegeen inay wax ridi doonaan 16 17 iyo 18 inay wax ridi doonaan ay ku carqaladeynayaan 18 May untii baa hadda cadaatay ciidanka qaranku meel joogaba guul buu rajeynayaa waanu ku guuleystay ilaa inta uu galay waxaanu shacabka u sheegayaa in hawshay noo idmadeen oo aad difaaca qaranka inaan sideed u hayno daafici doona guulaan gaari doona geesta kale Sarreeye Gaas Nuux Ismaaciil Taani taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu bulshada Soomaaliland u sheegay in ay gacanna ku difaacayaan qaranka Soomaaliland gacanna ay ku dabaaldegayaan xuska qaran ee 18 May shacabkeena wanaagsan ee jecel Soomaaliland waxaan ugu bishaareynaa inaan gacanna ku dalbaaldegi doono gacanna ku dagaalami doono oo cadawga ka ilaalin doono wadanka saana waxaan jecelahay iyaguna inay gacanna ku siiyaan sida Cabdiqaadir Xuseen Nuur Dacar iyo Cabdi Casiis Cali Nuur warbaahinta qaranka magaalada Hargeysa.